cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ku dhashay deegaanka mustaxiil oo ka tirsan dowlad deegaanka Itoobiya laakiin waxa uu yaraantiisa ku noolaa waxna ku bartay kuna soo barbaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxbarashadiisa jaamacadeed waxa uu ku soo qaatay dalka Yemen isagoo bartay maamulka iyo maareynta cabdikariin xuseen guuleed wixii ka horeeyay 2012 waxa uu ahaa shakhsi caadi oo aan han fiican u helin siyaasadda Soomaaliya isagoo ka tirsanaa bahda waxbarashada waxa uu muddo ka badan 20 sano ka soo shaqeynaya Africa Muslim Agency xafiiskeeda Soomaaliya waxa wasiir loogu magacaabay 3 xukuumadood xukuumadii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid xukuumadii Dr. Cabdiweli Sheekh Ahmed Maxamed iyo tii Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ay diideen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya maadaama ay ka soo muuqdeen wasiirro badan oo dib u dhac mooyee aan wax horumar ah dalkan ka sameynin waxaana wasiiradaasi baarlamaanka ay diideen qayb ka ahaa cabdikariin xuseen guuleed 4 November 2012 xukuumadii Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa lagu dhawaaqay cabdikariin xuseen guuleed ayaana loo magacaabay wasiirka amniga qaranka 17 January 2014 wasiirka koowaad ee xukuumadii Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheekh Ahmed Maxamed ayaa ku dhawaaqay liiska golaha wasiirada ee xukuumaddiisa wasiirka amniga qaranka ayaa mar kale waxa loo magacaabay cabdikariin xuseen guuleed 27 Abriil 2014 wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa hortagay baarlamaanka Soomaaliya iyaga oo su'aalo ka weydiiyay arrimo ku saabsan amniga dalka oo ay ka mid yihiin dilalkii loo geystay xildhibaano ka tirsan baarlamaankii sagaalaad dad lagu laayay deegaanka Muuri weerarkii lagu qaaday xarunta maxkamadda gobolka Banaadir iyo kii sidoo kale al-shabaab ay ku qaaday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya inta la og yahay taariikhda odayaashii lagu dilay Buurhakaba howlaha hay'adaha ammaanka iyo kuwa kale 24 May 2014 fashilkaasi xagga amniga waxa isku casilay wasiirkii amniga qaranka Soomaaliya waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirkii amniga qaranka July 2014 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cabdikariin xuseen guuleed waxa uu u magacaabay la taliyihiisa xagga siyaasadda 12 January 2015 ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada xukuumadda waxa ku jiray cabdikariin xuseen guuleed oo loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka inkastoo xukuumaddaasi la diiday sahankiisa koowaad oo aasaas u ahaa barakicinta dadka shacabka dhulkooda ayuu si toos ah u gudagalay inta uu xilka hayay isaga oo ciyaaray qorshe ah in marka hore uu aamusiyo idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho oo aad uga hadlaysay dhibka iyo barakicinta lagu hayay dadka taagta daran waxaana uu ku guuleystay in idaacadda uu hawada ka saaro sidoo kalena dhismihii ay deganeed uu kaga saaray xoog isaga oo adeegsanaya shaar dawladeed Shabeelle ayaa dukumiintiyo ay ku sii degnaato guriga haysatay dhulkaas oo ay ku ogeed wasaaradda howlaha guud hase yeeshee isla maalin gudaheed ayuu wasaaradda howlaha guud ku amray in ay ka laabato heshiiska Shabeelle iyo wasaaradda isla markaana uu weerar ku qaaday idaacadda 26 Oktoobar 2013 halkan waa xaafadda galmudug loo yaqaano waana halkii uu ka soo bilowday sahankii labaad ee cabdikariin xuseen guuleed sahankiisa labaad ayaa waxa uu ka bilaabay xaafadda loogu magac daray galmudug oo sababteeda uu lahaa in magacaasi loo bixiyo maadaama dhulka galmudug uu boobay kadibna uu ku galay ololihii uu ku soo baxay ee madaxtinimada loogu doortay maamulka galmudug 4 July 2015 cabdikariin xuseen guuleed dhulka uu xoogga ku qaatay ee galmudug waa imise boos dad badan ayaa xaqiijiyay in dhulkaasi uu ka cabirtay 100 boos oo dad shacab ah ay lahaayeen isaga oo sidoo kale dhulal badan ka kacsaday dad shacab ah isla markaasna uu ku leeyahay ilaa hadda aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah dhismaha uu hadda degan yahay oo uu ku diyaarinayo ololihiisa doorashada guud ee Soomaaliya waxyaabaha kale ee lagu xusuusto wasiirkii hore ee amniga waxaa ka mid ah boobkii kuraasta ee galmudug laga sameeyay oo la wada og yahay ee lagu boobay kursiga Sheekh Cabduqaadir Cali Cumar wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dawladii ku meel gaarka ee Sheekh Shariif Sheekh Ahmed arintaasi markii uu ka war helay Sheekh Cabduqaadir Cali Cumar waxa uu ku dhawaaqay in uu isaga haray doorashada tartanka kursiga aqalka hoose ee beeshiisa waxaana uu sheegay in aan iyaga haba yaraatee lagu wargelin doorashada ka dhaceysay Cadaado tartanka doorashadaasna lagu soo beegay maalin Jimco ah oo salaada khudbada lagu jiray ayuu yiri tartanka kursigaasna waxa uu ka dhaxeeyay Sheekh Cabduqaadir Cali Cumar iyo Saabir Nuur Shuuriye oo sababteeda uu lahaa in uu soo baxo cabdikariin xuseen guuleed cabdikariin xuseen guuleed waa musharax isku soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya sahankiisa saddexaad ma waxa uu noqon doonaa haddii uu xilka ku guuleysto in dalka uu iibsado ama sahan kale oo dad danyar ah dib loogu geysto waa su'aalaha ay isweydiinayaan dad badan oo aqoon fog u leh cabdikariin xuseen guuleed
ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking